بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، ثم كفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ولا ليال، أولا وحن إذن كسلام يا سلامتا مدى قيمها إيقايها بضن ومد إسلام كيسكو سلامان taasoo ah salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. waxaan rabaa insha allahu tacaalaa gabdhaha walaalahayga ah in halkan aan ugu naseexeeyo insha allahu tacaalaa kelmateen aan halkan ka yidhaahdo. walaalayaal, shaydaan yuun idin ilduufsan, shaydaanna talaawadiisa ha raacina. alla weyna jalla wacalaa wuxuu leeyahay walaa tattabicuu khudwaati shaydaan innahu lakum caduwwun mubiin. ha raacinna talaawooyinka shaydaanka, isagu cadow buu idin yahay. walaalayaal, ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuu inagu digayaa inaan shaydaan raacno, waayo ibliis waad og tihiin markii aadan la abuurayay inuu ku soo dhaartay in uu jidka ka leexinayo insha allahu tacaalaa awlaadii aadan calayhi salaatu wassalaam. marka walaalayaal, idinkoo aad og tihiin ilaahay subxaana wa tacaalaana uu u hanjabay la'amla'anna jahannama minka wa minman tabicaka minhum ajmaciin. adiga iyo ciddii ku raacdaba naarta jahannama ayaa lagu aroorayaa. marka walaalayaal, gabdhaheenna maantu si xaaladaha ay ku sugan yihiin maahan mid wanaagsan. walaalayaal waxaad ku qurux badan tihiin asturnaanta, ayaad ku qurux badan tihiin walaalayaal. waxaad qiimo ku leedihiin asturnaanta weeyaan walaalayaal. waxa aad mansab sare ku gaari gartaan waa asturnaanta iyo alla kacabsiga weeye walaalayaal. maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaalaa maadaama ummatu maxamedna hadal walba oo annaga nala doonaya in nagula hadlo ayaa waxaa loo soo hadal qabtaa nebiga calayhi salaatu wasalaam. markaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuu ku leeyay qur'aankiisa yaa ayuhannebiyu, nebi allow, qul liaswaajika, ku dheh xaasaskaaga, wa banaatika gabdhahaaga, wa nisaa'i almu'miniina, ragga mu'minaadka xaasaskooda, yudniina calayhinna min jalaabiibihinna, jalbaabka ama dharka asturan qaata. daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayna. taas ayaa ugu dhowaansho badan in la idin aqoonsado oo la idinku dhibin. waayo walaalayaal, hadda ilaahay hadalkiisa been ma noqdo. walaalayaal, waana xaqiiq. gabadhu maantu markay qaaban tahay waddada marayso waa la foodeeyaa. walaalayaal, waa la dhibaa. walaalayaal, qiimo sare ma lahan. watan waa tii qaabneed baa la leeyahay, laakiin markay asturan tahay hadda raggoo dhan way ka wada dhacaan walaalayaal. insha allahu tacaalaa kelmateenkaas kooban aan jeclaysay gabdhaha walaalahayga ah, muslimiinta ah, muslimaadka ah, mu'minaadka ah, in halkan aan ugu soo gudbiyo. insha allahu tacaalaa waxaan rajaynayaa in wax badan aad ku fahmi doontaan, wax badanna aad ku qaadan doontaan. gabar yahay, dhowrsanaantaad ku qiimo leedahay. gabar yahay, alla kacabsigaad ku qiimo leedahay. insha allahu tacaalaa ha isqiimo tirin oo ha isliidin. insha allahu tacaalaa arrinkaasi kuwaana qaado biidnillaahi albaari. wixii aan qalday naf iyo shaydaan bay ka ahaatay, wixii aan saxayna min allaahi xaggiisay ka ahaatay. insha allahu tacaalaa aquulu haadaa qowlii wanashkurukum calaa xusni ijtimaacakum, wabillaahi towfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.